لله الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة. لله الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة. كل منها ندعو بها والله اسم من أعظم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيارتي لبعض مركز الإيمان عصب ما أنتوا حجوجنا دريد شو حجوجنا بيرت بش عقارنا وجدا يا بش عقارنا جوجنا ما أنتوا وحان لوجسو كل خلف عصب بيرت وحا لوجسو خلف عصب خلف كاس وجدا مقعس وحا الله سويل تستر خلف كاسي وحو كل شيء يا تمبريجر كا جيد كادو عصبلي هي عصبلك بدنتاي قرحة هيركولكا بيهشكا wax kasta uu ku sheegaya marka qalabkaas maanta u jeedaan dibadda la keenay maanta waa tijaabinayna qalabkaasi geedahana ku tijaabinayna arkaydaan soo dhawaada marka waa u jeedaan meel hadda geedahan hal geed ku tijaabinayna wuxuu soo qoraa arkayna qaybtaas u jeedaan laba qayb waay meeshaas waxa ku qoran pH qaybtaas waxa ku qoran sal sharma si qoran saa u taqaaniin أو جدًا وحير هل دقيقة عمل سوينا أسامرك نتيجة صار الدون وهكذا نتيجة صاري جيت كاس أو جدًا نورمال واي بيه ساس مو بهنا حد معناها تمبريجر كيسان وجدًا صدني لح دقري وهيركوكا واتسا قرح من لو واي عادي واي سوبر نتيجة 16 صار دون ها نتيجة soo saaray geedkaas daray waayo oo biyihiisa biyo fiican oo leeyahay geedkan qoraxdana loo waayo qorax saas zaid malahan digrigan 36 digri waayo boo ujeedaan heerkulka qoraxda marka geedkaasi biyo fiican oo leeyahay ama biyaha ayaa ku badan soo ujeedaan marka hal mid kale oo ku tijaabi kartaan oo waxa ku tijaabi kartaan fartaada ku tijaabinay fartaada asaas u gelinay marka asaa ku dareemay biyo fiican haduu leeyahay biyo kale fartaada ku sheegayso qalabkaana waa sida fartaada oo kala faateen waa ujeedas geedkaasi saas soo saaray geedka adig aartid oo ku tijaabinay hadda waxa tijaabinay qaybtaasi haddana waxa tijaabinaynaa qaybta cusbada ma faateen geedka haddii cusbo oo ku yar yahay waa 1 ilaa 6 faat haddii cusbada oo ku badan yahay waa 7 ilaa 14 Soomaa 7 ilaa 14 haddii cusbada zaid oo leeyahay marka haddana ma qaybtaas tijaabinaynaa oo pH loo hayo taasa نال في الصدبل جيت كان قلنا أصلا نتيجة صار الدون وحيرة سوينا وكان نتيجة وحيرة سوينا صار نتيجة صاروا والوجه ده سما وكاسا جيت كان سأوجدان بيج كيس والح أو صو حواي معنا عصبة وزائد معها عصبة كوير هو وجدان عصبة كوير ماشي سنوالو هذا هوس وسي جرما أما كرو الدرم أما كرو كوس عامس هوس واي جيت كان ميمد وحوا ماشي سليح مرة في وجدان مرنا هاي ونقنا أو قرح ذا زايد كون خنيدو وجدان مرنا وحوا قرح ذا هوس دعيدو صو ضرورها كان معنا مرة ضرورها كأذا مك ضروران كحايك سوقرا markoo duruuraha geedku aadan waxa waay qoraxda ila yaraanayso ma loo soo qora qoraxda ku yar waa normal waxa waay dhaxdhaxaad waay had qoraxda ana dhidid ma zaid waay hayg waay hada isbedela wajeedino saa duruuraha saas camal waa
ilaa shabaqan oo kale waa kaas geedkaas cusbadiisa waa 6.4 waa cusbadiisa oo macnaha taas waxay ka dhigan tahay 6.4 taas cusbada inay ku yar tahay fahanti oo la qaadan karo laakiin 7 ilaa 14 waxa waa geedka cusbada ku badan waa fahantiin oo maleena cashirkaas marka nabada bal cashir kale marka qaybta cashiradan waxa kamid ah cashirka maanta geed baalkaas oo jeedaan baalkan soo loo ma jeedo baalkan oo jeedaan ayaa cashirkeena maanta mid bahal badan oo kuwan camal laga yaalan bahalkan maanta idin sheegayna marka way sawiradan meesha oo jeedaan kulligooda dhanna beerta ku aragnay marka hadda idin fasirno waa qayb idin ku sheegno sawirkiisa soo caadi sawiran meesha idin soo saareyna meeshan waxa ku qoran symptoms of nutrient deficiency macnaha calaamadaha lagu garto geedka inuu nafaqada ku yar yahay saas waay okay ya ma soo caadi sawirkiisa meesha soo saareyna qaybtaas oo jeedaan nitrogen oo qoran korkaas sawirka oo meesha ay soo saareyna adiga arki doontaan nitrogen kaas waxa ay calaamad caleenta jaalaha nitrogen ka duu ku yar yahay geedku wuxuu noqonayaa caleenta jaalaha inay ku yaraato nitrogen saas laga wadaa sulfur geedka hadii sulfurka uu ku yar yahay geedka caleenta kore waxay noqonaysaa qaabkaas oo jeedaan fahanteen qaybta labaadkaas qaybta magnesium ayaa ku qoran magnesium waxay tahay geedka inuu maarmaan camal yeesho geedka haduu magnesium ku yaraado caleemahaas caleenta saas ay noqonayaan maarmaar qaybta dhaxda iyo geesgeesaha waa u jeedaan maarmaarta camal yeelanay okay meeshan waxa ku qoran phosphorus kaas waxa waaye caleenta markii buluug ama geesaha ay buluug ka noqoto caleenta mar hadii geesaha buluug ay ku noqoto waxa ku yar baasha phosphorus la lahayo faatiin macnaha nafaqada phosphorus-ka kuwaan waa nafaqooyin nitrogen-ka sulfur-ka magnesium phosphorus-ka calcium-ka potassium kulligood waa nafaqooyin geed kasta nafaqada ku yar uu sheegaa marka daawada inaad soo qaadato loo baahno daawo kasto geedka noocaas aad ku aragtid daawadiisa inaad soo qaadatid okay geedkaas aad u jeedaan geedkan meeshan waxa ku qoran calcium hadii nafaqada calcium geedkaas uu ku yar yahay geedku wuxuu noqdaa saas oo caleemaha soo kuludma ama mirihiisa waxa arkay oo dhaxda hoos ku duleeshmay meeshaas duleelka noqonay macna geedkan hadda saas oo kale waxa ku aragtaan sida koostada oo kale koostada waa aragtaan macna koostada mar hadii saas camal noqoto waxa ku yar calcium okay qaybtaas oo jeedaan waxa ku qoran potassium nafaqada potassium geedka mar hadii geedka uu noqdo geesihiisa oo noqdo caleenta geesihiisa ay noqoto saan qaabkaasi sawirka meesha ku arki doontaan qaabkaas doo noqdo geedkaasi macnaha cadeynteedu waxay tahay waxa ku yar nafaqada potassium hadda waxa fiila baalkan inaa fahanteen oo cashirkeena labaad maanta xalaas uu ku yiri cashirkeena labadaas cashir qaadanayna insha Allah cashir badan oo arki doontaan ma ujeedaan insha Allah maanta cashiradana halaas waayo waxa la socon doontaan qaybta labaad insha Allah channelka subscribe like sara kulligiina insha Allah xanabla video xiga والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لله الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة لله الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة كل منها ندعو بها والله اسم من أعظمها